يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن الدنيا ممر وأن الآخرة هي المستقر، فاستبقوا الخيرات وحاسبوا أنفسكم على زلاتها وكفوها عن الإغراق في شهواتها، فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس. فالله في السرائر، فما ينفع في فسادها جمال الظاهر. أيها المسلمون عباد الله، إلهي سبحانه وتعالى وحو كتاب كيسين وغشاقي إلى أهل الجنة وآهايين مركي أدوية جوغين كوا قلوب تودا النظيفية، كوا كالنظيفية عقيدة فاسدك، كوا كالنظيفية الشبهات كي الشهوات كدمان، كوا قلوب تودا كالدقالمة خطرت إليهن حنون قلبك كدعا. وهاي هاي أهل الجنة مركي أدوية جوغين كوا قرحية قلوب تودا عقيدة صحدا إيمان دبنا قلبك ككينة مركو دقن كودو صداو النقضي. وهاي كقول استن إلهي سبحانه وتعالى جنة ديسة، فازوا بجنة عرضها السماوات والأرض وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. إلهي جل جلاله وتقدست أسماؤه وحين شيغي جنة إلا صدوي ددك إلهي سبحانه وتعالى كبقي تلمامها إليه وحكمدا إن مروا البقلب قودوا يهي قلبي توبت كينا قلبي قودا هريها بين بايوه إليه سيو حقات اللهايين تلمامه وحكمدا أخي الحبيب قلبي توبت كان كبضا يا ربي قودنا كل ما قلوب بدبادي قلبي بدبادي إيك بدبادي أمراض الشبهات والشهوات أيا نقول يا قلبي ما نتقيام بدبادي وأنا ككوكو ليس يا إلهي سبحانه وتعالى جنة ديسا. أيها المسلمون عباد الله، سؤال مهم إنوت الله ما حيوها أهل الجنة وأدوية مركي جوغين دارت الله شقيستو ما حيوها ينكو قلوب تودا الداهرية أو كالداهرية عقيدة فاسدك شبهاتك يا شهواتك معاكو كلف جري قلبي ودين الدريالان. وحيوغاين أيها العبد المسلم هدي وجركو هاغاغو وحاي كتمدي قلبي عافماد قبه
haddii jidhku uu xumaadana waxay arrintu ka timiday qalbi xun haddii aad aragto qof muslim oo khayraadka u degdegaya waxaad ogaataa qalbigiisu inuu nool yahay haddii aad aragto qof muslima oo macaasida u degdegaya gaabisna ka daacad waxaad ogaataa qalbigiisu inuu buko ama uu dhintayba waxaa rasuulkeena Muhammad uu leeyahay sallallahu alayhi wasallam alaa wa inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu alaa wa hiya al qalb wuxuu rasuulkiinoo sheegay sallallahu alayhi wasallam in jidhka ay ku jirto waslad yar wasladaasi haddii ay hagaagto jidhka dhammaan inuu hagaagayo haddii wasladaasi ay fasahaadana dhammaan jidhka oo dhan inuu xumaanayo weliba rasuulku waa inoo caddeeyey wasladaasi tay tahay daryeel badanna inay u baahan tahay waa qalbiga buu yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam ayuha alcabdu almuslim qalbigu wuxuu ka mid yahay nicamka waaweyn ee ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa uu siiyo waana mid la isweydiinaya maalinta qiyaame waxaa rabbulcizati uu leeyahay wahuwa asdaqu lqaa'iliin ina alsamca waalbasara waalfu'aad kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula maqalkiiyo aragga iyo qalbiga dhammaan in la isweydiinayo oo la isxisaabinayo oo addoon kasta sidiisa loo weydiinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sheegay ayuha alcabdu almuslim khayrka u degdeg qalbigaagana maydh weelkaad cuntada ku ridataba waad maydhataa qalbigaad ilaahay ku qaabilayso ha noqdo qalbi caafimaad qaba ayuha alcabdu almuslim waxaa ku kalifi jiray ahluljannaha adduunyada markay joogeen inay quluubtooda daryeelaan waxay garanayeen qalbiga caafimaadka qaba waa qalbiga ku intifaacaya quraanka kariimka waa qalbiga quraanku wuxuu tarayo waxa ilaahay subhanahu wa ta'ala leeyahay inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid quraanku huwa u yahay oo wuxuu taraya qof qalbi leh qalbi weelaynaya xubnahana marsiinaya inay ku dhaqmaan waxa ku kalifi jiray ahlul jannaha inay qulubtooda ilaashadaan waxay garanayeen qalbiga caafimaadka qaba inuu yahay kamaalinta qiyaame ilaahay cadaabkiisa ka badbaadaya wallahi inaanad ku badbaadin maalinta qiyaame maalkaaga ku badbaadi maysid maalinta qiyaame awlaadaada waxaad ku badbaadaysid ilaahayna la hor istaagtaa loo baahan yahay waa qalbi caafimaad qaba yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim ilaahay waxa uu leeyahay jalla jalaaluh maalinta qiyaame waa maalin aanay dadku anfacayn maal iyo ubatoona maalinta addoonka waxaa anfacaya addoonka la yimaada qalbi caafimaad qaba haddii qalbigaagu adkaado oo qalbigaagu dabci waayo hoog iyo halaagsan iyo cadaab baa u yaalla fawaylun lilqaasiyati quluubuhum min dikri illaah ulaa'ika fii dalaalin mubiin waxa ilaahay leeyahay halaagi cadaab baa u sugnaaday dadka quluubtoodu adkaaday ee xuska ilaahay uu jilcin waayay kuwaasi waa kuwa baadicad ku sugan baa alla weyne leeyahay ayuha alcabdu almuslim waxaa ku kalifi jiray ahluljannuhu markay adduunyada joogeen inay quluubtooda ilaashadaan waxay garanayeen qalbiga caafimaadka qaba inuu yahay ka jannada lagu galo waayo rasuulku wuxuu inoo sheegay sallallahu alayhi wasallam yadkhulu aljannata aqwaamun afidatuhum mithlu afidati ad-dayr waxa jannada galaya dad
quluubtoodu ay tahay sida quluubta shimbiraha oo kale bimacnaa quluubun raqiiqa waa quluub baqanaysa oo cabsanaysa sidaasaa ilaahay rasuulku wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadka quluubtoodu ay baqanayso waa kuwa maalinta qiyaamo jannada rabbi subxaanahu wa tacaala gelaya ayuha alcabdu almuslim haddii aynu garannay oo aynu fahanay waxa ku kalifi jiray ahluljannaha su'aal kaloo muhiima inoo taalla kayfa yudahiru axadunaa qalbah sidee buu u daahirinayaa mid inaga mida qalbigiisa oo uga dhigayaa qalbi badqaba waxaynu garanaynaa oo aynu ognahay jannada in lagu galay qalbi caafimaad qaba haddii aynu janno doonayno quluubteena waa inaynu ilaashanno arrinka koowaad ee qalbiga la doonaya inaynu ku daahirinaa wuxuu yahay inaynu quluubteenna ku qurxinno tawxiidka inaynu ku qurxinno kalimatu laa ilaaha ila allah inaynu qalbiga ka rumayno oo carabka aynu kaga dhawaaqno oo xubnaha aynu ka samayno oo aynu jeclaana cidda ku dhawaaqaysa ehelkeeda aynu jeclaanaynu xidhiidhinno waxay laa ilaaha ila allah inoo diidaysana aynu ka tagno qaala sala allahu calayhi wasalam man qaala laa ilaaha ila allah mukhlisan min qalbihi dakhala aljanna qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah isagoo qalbigiisa ka soo jaraya iyadoo saafiya qofkaasi waxa uu ku helayaa jannada inuu ku galo ayuu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam ayuha alcabdu almuslim ku qurxi qalbigaaga tawxiidku qalbiga ayuu daahiriyaa shirkiguna qalbiga ayuu iskageeyaa ayuha almuslimuuna cibaad allah qofku waxyaabaha la doonaya qalbigiisa inuu ka daahiriyo waxaa ka mid ah inuu macaasida uu ka fogaado waxaynu ognahay macaasidu quluubta ayay madoobaysaa balay iska daaye way dishaa oo way adkaysaa oo waxa ay ka dhigtaa mid dhagaxa oo waxa weeye dhibicaanay ka dhibcin ayuha alcabdu almuslim haddii aad ku raaxaysato indhahaagu ay ku raaxaystaan macaasida waxaad ogaataa qalbigaagaan badqabin haddii sigaarkaad cabbayso fii raaxa aad ka dareemayso waxaad ogaataa qalbigaagu inaanu badqabin haddii xanta muslimiinta aad xamanaysa raaxa aad u aragto waxaad ogaataa qalbigaagu inaanu badqabin haddii heesaha dhagaysigooda raaxa aad u aragto ogow qalbigaagu inuu qalalan yahay waxaana la doonayaa inaad ka daahiriso arrimaha dhammaan aynu wada sheegnay waayo waxa aan shaki lahayn macaasidu qalbiga inay madoobayso qabrigana way ku madoobayn qiyaamahaaguna madow buu kugu dhici doonaa ilaahay waxa uu leeyahay jalla jalaaluhu wataqaddasat asmaa'uh kallaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun raankiyo daxalka waa uskaga way ka tagta macaasidu ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inooga warbixiyey wayaquulu sala allahu calayhi wasalam tucradu alfitani cala alquluub cuudan cuuda waxaa rasuulku inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh macaasidii iyo fitanku inay quluubta safu soo gasho fa ayu qalbin ushribahaa nukita fii qalbihi nuktatu sawdaa qalbigii cabba macaasidaas ee sharaaba bar madow iyo dhibic madow in lagu dhufanayaa rasuulku inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh qalbi kastoo iska diida in isagana dhibicad lagu dhufanayo quluubtina labay u kala baxday waa qalbi cad iyo qalbi madow naftaada teed raali kala tahay ayuha alcabdu almuslim waxaanad ogaataa akhal iimaan haddii qalbigaagu u madoobaado maalinta qiyaamo wejigaaga ayaa madoobaanaya
هدي قلبك عدادنا ما لنتقيام وجهك وعدانيا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون إلهي وحاوين الشيء ما لنتقيام إلا بوجه الله كربيح دونه وجه عادي وجه مدو وجه مدو عذاب باله وجه عادي نوح دح مشاحيا أو دح قاضيا إلهي النحريستي سوكواريا أيها العبد المسلم أرمها اللدون يقولوا تنينينك الظاهر إنه وحكم إذا دقيسك قرآنك كريمك بل حال كان يا قرآنك نفهنا إنه بندقنا والله هدي أين الدمس كقولنا قلنا كتب تمسات شدة دسكا كدلي أنت كرسوق داوي ترسنتاي كسوق أنا عيدي بكدرما إلا من رحم رب عدوا الله ونحريس سيمو يعني وعلق يا بيت قرآن مركو آخريو إنه دارو إسكالابو هدي صاحبك وقريك كصوب بغضنا وهبينكي ولا سوچيدو oo laga yaabo 12 habeenimo markay marayso oo ninkii ku yiraahdo saaxiib waan ku daaliyay iska seexo meemay walle waxba kama dhawo iska wad wali ma daarin ala fal nuraaji' qulubana qulubteena aynu ku noqono haday qulubteenu bad qabilahayd kama aynu daalnayn ilaahay kitaabkiisa laakiin mushkiladu waa qulubta oo baahan in boorka laga garaaco يقول رب العزة وهو أصدق القائلين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إلهي دمان ددكو دنبو دواضي مؤمنهم وكافرهم قال يا مسلم با مركز إلهي وحد وحايدي يتمد ربكين وانو واحتر له oo daweynaysa qulubta xanuunada shubahada iyo shahwada dhamaanba ka daweynaysa waa hanuun iyo naxariis mu'miniinta ayuu yahay baa la weyna leeyahay ayuha al-abd al-muslim hadii aad doonayso qalbiga laabtaada ku jira inuu bad qabo oo doonaysa inuu ku caafimaad qabo u bandhig ilaahay kitaabkiisa akhri in badan quraanka oo la noolow قلبك ودمعي دونا شكنا مله حالك مؤمنين تنوار لصفا دونتا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إلهي وحينا وقور بحيي مؤمنين تدبتا إنيهم كوا مركا لغواني إلهي آيات كيسة قلوب تودو أي جوابتو قلبنا مركب أمر وصية إنده دنا أي برقدان أيها العبد المسلم هدي أدون إسا قلبك أقوينو كوبت قبه كل الددال قلبك حسك إلهي سبحانه وتعالى حسك إلهي ما قلبك الدتشية وانا الدوان شكي قلين إلهينا سبحانه وتعالى سعدنا وقرشاقي ألا بذكر الله تطمئن القلوب حسك إلهي بي قلوب تكدكتاك وحاسشا ذكر الله دواء وذكر الناس داء إلهي إن بدن لهذا الهيا والدو بني آدم كد إن بدن صو هذا القادان وحنون يوحكو مقنون كامقنين أيها العبد المسلم دقنا شايا إلهي قليل ذكرك نلشاد أردن سايون نقطة متقولات كقاده إلهي حسك إلهي سبحانه وتعالى وقرقاك كعمر ذكرك إلهي أذكارتك قل هورية قل اندنبب إلهي بلو في رساخ الحبيب ضدك يا خيارتا هاي السلف كي لقن كودي هذا اللذوذة بل نكنوا في رساك المدول يا والله إننا لفي سعادة لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فينا لجالدونا عليها بالسيوف
والله وحانو كسغناه الراحة بوتاقيه هدي أيوغان لهايين مدحدو يوباد كودو وحانو هايسانا وينكو قبسا لهايين وانينكو لدقالم لهايين تلو مقرية فوق قوة وين بي لهايين مسحو فربضا بي لهايين إنما هي سعادة القلب راحة برتي كدريمي وقلبك هل كنولاتين وقلبك أيها العبد المسلم قلبك كالظاهر إن أتالك كبحض علمك بره إله عابد علم وياله إلهي جهل لك معابده أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم برع علمك والضرب قلبك دمعي وانوك ظاهري فديك ضررك يا مقاحيها كوينو يا هذا الكقرحة سياسة مدليسك قابل إلهي الدين تيسة إلها قودو وايا مالين بمالين تكسي دنبي سوى حينوسي قورينا دنعي آخر هذا كفكر أيها العبد المسلم قفك إنك مدك دون يينو ياشت المامها يهل الجنة هالظاهري قلبي قيسة وها إلاليو أرماها إنو الشيقنين دقنها وبدلو كإلالي قلبي إنو كادو قلبي قادك عذابك إلهي باله قلبك تلع سنة إلهي جندي سايوك قولي سنيا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء يا رب العالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.